dhammaan waa salaamaya dhegeystayaasha waxaan u mahad celinayaa idaacadda radio Garowe waxaynu bilaabaynaa barnaamijkeennii ahaa iidsiinta agoonta aynu agoonteena ku iidsiinaynay aynu uga farxinaynay aynu ku iidsiinaynay agoonteena aynu kaga farxinaynay walaalayaal magaaladeena waxaa ku nool agoon badan agoontaas waxa weeye innaga ayayna sugayaan carruurteena markaynu dhar qurux badan u gelino carruurteena markaynu ka farxino carruurteena qalabka ay ku cayaaraan carruurta markaynu u diyaarino carruurtii ay isla cayaarayeen carruurtii ay dariska ahaayeen carruurtii dugsiga qur-aanka wada dhiganayeen carruurtii barxadaha iskugu imaanayeen haddii aysan haysan aabbayaal iidsiiya aabbayaal ka farxiya iyo waalid wax u gada oo ay carruurteennii iyo carruurtaas isku yimaadaan bal qiimeeya arrintaas waxaan ku leenahay marka walaalayaal aynu isku naxariisanno in ilaahay loo naxariisto agoonteena aynu ka farxino in ilaahayna ka farxiyo innagayna sugayaan innagaa ilaahayna ku imtixaamaya innagaa ilaahayna ku eegaya in ilaahay adduunka dhibaatooyinkiisa iyo musiibooyinka dhinacina ka mariyo bishii ramadaan baa lagu jiraa 10keedii dambe in ilaahay loo naxariisto in ilaahay inoo dambi dhaafo in ilaahayna ku daro kuwa naarta laga xoreynayo aynu agoonteena u naxariisanno aynu agoonteena u gargaarno aynu go-aan ku gaarno sidaynu ugu ballannay maalinta ciidda carruurta magaaladeena joogta kuwa agoonta kuwa danyarta kuwa waxa weeyaan rajooyinka kuwa aan waxba haysan iyo kuweena inay isku si u qurux badnaadaan inay isku si u farxaan inay isku si ciidda ugu damaashaadaan si ilaahay inoo ku naxariisto markaynu isku naxariisanaa ilaahay inoo naxariisanayaa qofkii agoon iidsiinaya agoon waxaa ku filan $30 waxa uu kusoo hagaajin karaa teleefanka ah 45 akoonka ah 45 46 43 waxa uu kusoo hagaajin karaa qofkii agoon iidsiinaya 45 46 43 halkii agoon waxaa ku filan hadduu wiil yahay iyo hadduu gabar yahayba $30 haddii aad agoon ka qayb qaadatid oo aad isugu tagtaan dhowr qof $1 qofkii bixiya 2 qofkii bixiya 3 qofkii bixiya 5 wixii qofkii bixiya intuba meel bay isugu tagaysaa miisaanka xasanaadkii ku galaysaa sadaqadu maalka ma nusqaamiso waa ay barakaysaa meeshii aad ka bixisay wax badan ka badan ayaa ilaahay kuu gelinaya waxa weeye qofkii agoon iidsiinaya waa intaas qofkii dhar siinaya cusub qofkii dhar duuga siinaya waxa uu la soo xiriiri karaa 7 35 90 97 7 35 90 97 qofkii dhar cusub siinaya agoonta qofkii dhar waxa weeyaan duuga siinaya intaba waxa weeyaan muhiimadu inaynu maalintaas ka farxino agoonteena inaynu dhar xirtaan kuwa aan haysan aynu dhar u xirno inaan kuwa waxay isku qurxiyaan haysan aynu wax ku qurxino walaalayaal marka dhammaanteen aynu waxa weeyaan u naxariisano agoonta aynu isu taagno qof walba waxa weeyaan maanta waxa weeyaan waxay maraysaa 27 baa ramadaankii maraya labadaas maalmood oo inoo dhiman boqolkii saddexaad ayaa wax yara ka dhiman yihiin waxa weeyaan aynu haddaynu 300 iidsiino oo agoona oo danyara oo magaaladeena wax weyn bay noqonaysaa qof walba inaga ina ka mid ahow waxa weeye naftaada ka mataal adigoo agoona oo aan aabba lahayn oo aan waxa weeyaan wax ku iidsiiya haysan oo aan wax ka farxiya haysan kurbada ku hayn lahayd intay la eg tahay waxa weeye qof walba ka fakar qof walba waxa weeye agoonteena aynu naxariisanno hor ilaahay aynu wax geysano ilaahay subxaanahu wa ta'ala bangigiisa aynu wax geysano maalka waxaynu sadaqaysanayno kullanahay بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامجكم ونوع برنامجكم خيري ده دمانتين waxay noogu jirta ajar baan ka helaynaa dhammaanteen waxaan leenahay dadku ha nagala qayb qaataan bulshada ha nagala qayb qaato reer Garowe gaar ahaan ha nagala qayb qaataan waxaan u mahadcelinayaa raadiyo Garowe barnaamijkan aad iyo aad nooga taageertay la-aanteed waxaan maanu qabaneen la-aanteed waxaan dhihi karnaa dad badan maanu siinin waxaan leenahay hooyooyinka aabooyinka dhammaan bulshada dhan hooyo aabaha waxaan leenahay aaba nagala qayb qaaday barnaamijkan waxay saameynaysaa waa ciyaalkeenii adigu waxaad haystaa ciyaal ku dhahaa aabe iyo uma haystaan aabooda waa ka hooseeya mana helaan kelmadda aabo marka ciyaalkaagu nasiib waxay u yeesheen inay helaan kelmadda aabo waxaan leenahay ciyaalka yararka nala idsii nagala farxi aabo maalinta aan wada farxino ciyaalkeena agoonta iyo kuwan aaba haysto aaba leh ha wada farxaan dhammaantood hooyooyinka waxaa leenahay hooyo dhibaatada aday ku haysataa waxa weeye hooyo haysata ilmihii hadduu aaba dhinto booskii baneeyo allaha u naxariistay waxaa aaba iyo hooyo isku qaadanaysa waa hooyo marka waxaan leenahay hooyooyinka hooyo macaane hawshan adigay ku haysataa hooyada u hiili aan waxba awoodin ciyaalkeena aan iidsiino yoomul iid aan wada farxan haddii ilaa yiraahdo waxaan ka gaarsiinayaa dhowrka ugu dambeeya message buruud ismaaciil maxamuud sidoo kale maryan axmed xirsi cabdirashiid cali maxamed maasha allah qofkan wuxuu iidsiiyey 2 ilmood waa cabdinuur cabdulaahi maxamuud jazaaka allah dhammaantiin badal khayr qabiilaha idin siiyo awlaada ilaahay idin barakeeyo waxaan leenahay yowmul iid aan wada faraxno saaqada ilaahay idin xalaaleeyo sadaqadu booskeedu ma banaanaato ilaahay wax ka khayr badan ha idinku bixiyo insha allah bin kariim
بسم الله الرحمن الرحيم. انتي واحد بحسي يقول بيان انتي الاخريي بارود عثمان مريم عبد النور دما وحلنا واحد بحسين wax ka khayr badan Allah idin ku bedelo maalka Allah idin barakeeyo awlaada Allah idin barakeeyo bishii Ramadan 10keedii dambe ayaa lagu jiraa Ilaahay subhanahu wa ta'ala adoomadiisa wanaagsan oo naarta ka xoreyn jiray sadaqadii naas Ilaahay naarta idin kaga xoreeyo Ilaahay jannada idin ku geeyo Ilaahay dambigiina iyo dambigii waalidkiin baa Allah ku dhaafo agoon baad ka farxisaan Ilaahay idin ka farxiyo agoon ka walwalayay oo ka kurbaysnaa wuxuu ku iiday ayaad kurbadii ka faydeen Ilaahay kurbooyinka adduunka iyo kuwa aakhirada idin ka faydo Ilaahay caafimaad idin ku siiyo Ilaahay idin barakeeyo maalka iyo awlaada Ilaahay idin kaga xafido dhibaatooyinka iyo musiibooyinka adduunka iyo kuwa aakhirada Ilaahay sadaqadiina idin kaga xafido walaalayaal aynu Ilaahay hortiis geysano aynu waxa weeye Ilaahay dartiis aynu uga farxina agoonta Ilaahay dartiis aynu u iidsiino waxa la bixiyo waxa ugu khayr badan wax Allihii inab abuuray Allihii ina haysiiyay Allihii maalka ina siiyay Allihii awlaada ina siiyay dartiis waxaynu u bixino alla dartiis aynu agoonta u iidsiino alla dartiis aynu agoonta uga farxino alla dartiis aynu agoonta u qurxino in Ilaahay inoo naxariiso in Ilaahay ina qurxiyo in Ilaahay ina badbaadiyo in Ilaahay ina ku dambi dhaafo walaal iidsi agoon hadaad agoon iidsiinaysid waxa weeyaan agoonka waxa ku filan $30 waxaad ugu soo hagaajin kartaa 45 46 43 hadaad dhar cusub iyo dhar duuga waxa la waxaad siinaysid waxaad soo wici kartaa teleefanka ah 7 35 9 97 waxa weeyaan agoonteena aynu ka farxino agoonteena aynu waxa weeyaan iidsiino agoonteena hayna la qaybsadeen farxadda iyo damaashaadka iida qof walba waxa weeyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala hortiisa wax geyso qof walba Ilaahay dartiis waxa weeyaan wax wala bax maanta waa maalin jimcaha waa ciidii asbuuca waa maalintii saacatul ijaabada ku jidhay waa bishii Ramadan waa 10kii ugu dambeysay waa 10kii naarta la iska xoreynayay qof walba waxa weeyaan hor Ilaahay wax geyso qof walba agoon ka farxi qof walba agoon qurxi qof walba agoon iidsi in Ilaahay subhanahu wa ta'ala inagana wax ka wanaagsan iyo wax ka badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ku bedelo